wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada Baardhire ayaa maanta dhagax dhigay qayb cusub oo saldhigga magaalada Baardhire isla markaana dayactir lagu sameeyo xilli ay kormeer ku sameeyeen burburka shaqada saldhigga dhexe ee degmada Baardhire ee gobolka Gedo. Mas'uuliyiinta ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubkan booliiska isla markaana loo diyaariyay soo dhaweynta mas'uuliyiinta. gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo Mudane Cusmaan Nuur Xaaji taliyaha ciidamada xasilinta gobolka ayaa wasiirka iyo mas'uuliyiinta la socday uga warbixiyay burburka iyo sidoo kale baahiyaha ka jira halkan. ayadoo inaga soo qayb gashay ama inala dhagax dhigtay madaxdii wasiiradii ka yimaaday Muqdisho waxaan ku dhagax dhignay saldhigga Baardheere waxaana dhisayaa hay'adda la yiraahdo DRC waxaana dhisaysaa saldhigga hadda aan dhex taaganahay ee degmada Baardheere saldhiggii Ceelwaaq saldhiggii degmada Garbaarey waa guul marka u soo hoyatay guud ahaan gobolka Gada mar haddii la dhisayo saldhigyadii ay joogaan ciidamada booliiska fursadna waxaan u helnay maanta waxa ilaahay mahadi ah marka hore sidaan u soo halganay halkan ka dheer u soo galnay waxa xukumay ciidamadii saldhigyada waxa noo joogay ciidamada militariga xariyooyinka ciidanka waxa noo joogay ciidanka militariga nabad sugid waxa noo ahaa ciidanka militariga maanta waxaan helnay marka ciidankii nabad sugidda waa diyaar oo degmadii ku sugan yahay ciidanka booliiska taliyihii qaybta loo soo magacaabay oo waa diyaar maanta waatan oo saldhigiisii maxaan ku raadaan ugu soo dhaweynay oo dhagax dhigayna saakin waxa lagu wareejiyay ciidanka cusbaa oo rasmiga ah degmada maxaan ku raadaa Baardheere taliyihii saldhiga waa kan hadda hor taagan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay dhismaha iyo howlgelinta dhammaan saldhigyada dalka. saldhigan markii hawshiisa dhamaato oo qalabeyntiisa dhamaato oo dhismihiisu markuu dhamaado qalabeyntiisu dhamaatana baabuurtii iyo hadda qalabka yar haystaan oo ay ku jiraan radio toga iyo HF-ka iyo ku jiraan rakibidiisa iyo injineeradii rakibi lahaa iyo baabuurtii goodarka lahayd ee loogu adeegi lahaa bulshadana in aad heshaan ayaan ka shaqaynaynaa annagoo kaashanayna xogta taliyaashiina waa wax mudan in la ilaalsado hadda shaqadii meel fiican markii la geeyo in la ilaalsado reer Baardheere booliiska og tihiin saaxiibka dadweynaha waa meeshii la inkugu adeegi lahaa midka bulshada dhibka ku hayo looga qaban lahaa cadaalad aad ku heli lahaydeen marka waxaan leeyahay markaad adeegan heshaanna ilaalsada waa waxa idinka wada leedihiin wax idin dhaxeeyo way in la ku adeega mudan way aad iyo aad baan ugu mahadinayaa maamulka iyo hay'adda dhisaysaba halkan iyo dadweynaha reer Baardheere oo u istaagay inay shaqadan qabsanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi guul baa idin rajaynayaa خير بدر جنا عمر إدريس أحمد وربعين تقارن كا مقالة باردة قبل كا قدو.